haddaba waa maxay accountingka marka qeexidiisii waayo waxa inoo soo hormartay natiijadii ama resultskii accountingka haddaba halkan waxaanu ku qeexaynaa waxa uu accountingku yahay accounting is the process accountingka qeexidiisa haddaba waxa weeye waa steps ama tallaabooyin is the process waa amaliyadii ama waa dariiqii ama waa habkii lagu record garaynayay is the process of recording waa amaliyadii ama dariiqii lagu record garaynayay classifying laguna kala qaadayay summarizingka waa soo gaabin weeye lagu kala qaadayay macnaheeda waxa weeye waa kala qaadid oo account weliba meel baad geynaysaa meel u gaar ah cashka oo kale account buu leeyahay accountkiisi gooni ahaan baad u geynaysaa marka transactionka recordingka uu dhaco sidoo kale waxaan u imaanaynaa summarizing waa maxay waa soo gaabin weeyaan waa soo gaabin la soo gaabinayo balance ka soo qaadasho weeyaan macnaha waa balance ka soo qaadasho oo waxaad ka soo qaadanaysaa accountkii cashka ahaa tusaale ahaan ayaad waxaad ka soo qaadanaysaa balancegii and reporting iyo report garayn reporting waa maxay waa diyaarintii reportka waa diyaarintii informationka ama diyaarintii financial informationka ama markaa aanu diyaarino markaa si ay u saacido to assist and reporting financial information diyaarintii oo aanu ku report garaynaynay financial information macluumaadkii maaliga ahaa macluumaadkii maaliyadeed weeye to assist si ay u saacido si ay u helbigarayso weeyaan to assist si ay u helbigarayso people dadka say u muxuu ahaa ay u caawinto in making decisions sidii ay u samaysan lahaayeen qaraaraad waayo macluumaad bay dadka helayaan waayo waa outputkii weeye waayo accountingka processka aanu soo samaynay oo idil wuxuu ahaa input buu ahaa data ayaanu gelinaynay datadii markaas waxaanu ka helnay information oo waxaanu ka helnay financial informationkaasi ayaa wuxuu helbigaraynayaa ama caawinayaa ama supporti garaynayaa sidii aanu u gaari lahayn go-aan sidii aanu u samayn lahayn go-aanadaasina way fara badan yihiin nin walba hadaf buu ka leeyahay kii shirkad sheer ka iibsan lahaa wuxuu u baahan yahay financial information kii shirkad kusoo biiri lahaa oo sheer partner ka noqon lahaa wuxuu u baahan yahay financial information of the company kii muxuu ahaa doonayo inuu siiyo kambanigaasi amaah wuxuu u baahan yahay financial information si amaahda uu bixinayo uu ogaado in ay ku samaynayaan profit isla markaana inay u soo celin doonaan lacagtii meeshaasi ka gashay marka inteenanba waxaan u baahannahay financial information saasoo kale muxuu ahaa customerka laftiisii wuxuu u baahan yahay financial information inuu helo waayo haddii kambaniga uu alaabta ka iibsanayo uu financial positionkiisa uu strong yahay waxaa caddaanaysa markaas inuu isku haleeyo oo kambanigan long term in uu support ka helo haddaba accounting is the process accountingka waxa weeye waa dariiqii waa camaliyadii lagu record garaynayay laguna kala qaadayay waa journalize recordingka macnaha waxa weeye accounting ahaan waa journalize waa journalayn classifyingkana waxa weeye waa posting waxaad maqashaa posti garee camaliyadaasi ama that action ama process ama financial eventskaasi markaad record garayso kadibna muxuu ahaa posti garee marka classifyingka waxaan ula jeednaa waxa weeye waa posting waxaa inoogu sii xiga markaasi summarizingka it means waxa weeye accounting ahaan waa trial balancegii kuu soo baxayay marka aad balansyadii ka soo aruursato ledgerskii ama general ledgerkii waxaa inoogu sii xiga markaa reporting oo ah report garayn waa report garayn waxaadna report garaynaysaa markaa financial statementskii liisaskii maaliga ahaa liisaska maaliyadeed waa balance sheetkii kambaniga iyo income statementkii kambaniga iyo muxuu ahaa cash flow statementkii ama qaa'imadii tadafuqa maaliga ahayd marka intaba markaa waxay saacidaysaa
informationka ay xambaarsan yihiin to assist in ay saacido financial statementskaasi people dadka inay saacido in making decisions in ay sameeyaan qaraaraad inay sameeyaan marka qaraaraadkaasi ahdaabtooda iyadana way fara badan tahay nin walbana go-aan buu ka leeyahay